بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله الصوماليد ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما ييرو عدي دبان دبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحريستو والدينتي أن الله ونحريستو أننا الله نوغد بنحريستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana watacaala inoo badbaadiyo. saddex qodob baan ka hadlayaa. qodobka koowaad, ciidamada turkiga uu yimi kelmadan ka oranaya. qodobka labaad, ciidankii qaranka iyo ceeldheerna kelmad baan ka oranaya. qodobka saddexaad, ra-iisul wasaare xamse oo fariin iyo message uu diray aan ka jawaabayana kelmad baan ka oranaya. ciidamo tiro badan ayaa turkigu keenay, tiradooda la isku khilaafsan yahay 1,500 labadaba lagu sheegay. saan hore idinku sheegay, madaxweynuhu wuxuu turkiga ka dalbaday ciidankii waa kaas hadda yimi. laakiin su-aasha isweydiinta leh baa waxay tahay, ciidamadaasi maxay ku socdaan, maxay ku yimaadeen, sharciyadee haystaan, maxay noqon doonaan, ujeeddadoodu maxay tahay? warar aada u kala duwan ayaa ka soo baxaya, laakiin time will tell, taariikhda sheegi doonta, waqtigaa caddayn doona waxay u socdaan. sababtaan saa u leenahay waxa weeye, marka koowaad baarlamaankii dowladda soomaaliya lama marin. marka labaad, ciidamo security councilka iyo african unionka la mariyey ma aha. marka saddexaad, baarlamaanka turkigu ma abruuf garayn. marka maxay ku socdaan? warar kala duwan baa ka soo baxaya. meelaha turkida iyo danaha turkiday ilaalinayaan oo waardiyeynayaan, maadaama baqdin badan ay muqdisho ka jirto. waa war kale wuxuu leeyahay maya, madaxweynaha dalbaday ciidanka inay u dagaalgalaan oo ay al-shabaab kala xoreeyaan dalka. warkaas waxaa lagu darayaa in madaxweynuhu uu isagu ka dalbaday ciidanku inay u dagaalamaan dalka soomaaliya. war kale wuxuu leeyahay maya, turkida waxay ka carootay qaabka ciidamada soomaaliyeed oo iyagu ay tababareen loo burburiyey, oo ay ku eedaynayaan dowladda soomaaliya iyo imaaraadka oo isku daaban inay ka dambeeyeen in ciidamada la baabi'iyo. war kale wuxuu leeyahay etoobiya ciidan tiro badan oo ay leedahay oo turkigu amray, iyo ciidanka turkida oo u noqon doona iliid hormuud ah, baa dalka xorayn doona, ka xorayn doona al-shabaab, kadibna danaha ay ka leeyihiin xaqiijin doona. waxay noqotaba waa arki doonaa. waxaanse ilaahay ka baryaynaa inaysan shari noola imaan ee ay khayr la yimaadaan. qodobka intaasan ka oranaya. qodobka labaad, madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu fadhiyo dhowra kaga faanay in uu baaba'shay ciidamadii farmaajo soo dhoobdhoobtay. saad ogtihiin, xilligii doorashadu socotay dad hadli jiray baa jira oo hadda aamusan. nin professor sheegta oo aan luqadda ingiriiska waxba ka aqoon, isla markaasna sheegta inuu ingiriis wax ku soo bartay, sida Malaysia inuu ka soo baxay jaamacad PhD-na ka soo qaatay, 2 sentence oo ingiriisna aan isku xijin karin. qabyaaladiiste ah oo la yiraahdo xasan sheekh, oo ay xasan sheekh isku reer yihiin, maalin walba la taagnaan jiray bannaanka dastuurka isagoo saa u haysta, dagaalami jiray, afka qayle ka sii dayn jiray. hadalladuu dhihi jiray waxaa ka mid ahaa ciidamada Eritrea lagu soo tababaray iyo ciidamada magacyada leh, gorgor iyo magacyada bahalaha leh, shabeel iyo gorgor iyo haram cadiya leh, hala baabi'iyo. maxaa yeelay ideology khariban baa lagu tababaray. waxay daacad u yihiin farmaajo, uma aha daacad dalka. waxaa ka mid ahaa hadalladaa wixii dhihi jiray fiqiga hadda wasiirka ah, oo dhihi jiray ciidamadaasi waa maleeshiyaad reerood ama beeleed. waxaa ka mid ahaa gruubkii kharibnaa ee la oran jiray Sahan Research, oo yiri publicly u soo qoray ciidamadaas markii xasan sheekh uu meesha yimi, from scratch laga soo bilaabo hana la baabiyo. 2 nin oo Rashiid Cabdi iyo Matt Bryden labaduba saas yiraahdeen. madaxweynuhu fadhi ay fadhiyaan yarkii aan alqabyaalo u bixinay
iyo midkii kaloo ahaa TikTok ayuu wuxuu kaga faanay inuu ciidamadaas burburiyey. waxaa la yaab leh hadal uu kaga jawaabay isagoo u nacamlaynaya oo guulwadaynaya alqabyaale uu kaga jawaabay hadalka xasan sheekh isagoo ku taageeraya guulwadaynaya wuxuu ku yidhi weliba si siyaasadaysan oo aan annaga nolol ku eedayn karin baanu uga takhallusnay. macnaha al-shabaab baa laayey, al-shabaab baana dadku ku eedayn doonaa. seriously you really think that? caqligaaguma intaasu ku siinaya? you think in aan laydinku eedaynayn inaad idinku ciidamadii layseen, weliba saraakiishii magacyada lahayd. hadalka aad ka maqasheen xasan macallin wasiirka cadaaladda oo ahaa saraakiishii xamar dhibaatayn jirtay waanu ka qaadnay, waa ka takhallusnay oo furimahaanu geynay. kulligeed waxay tusaysaa xasan inuu si ku talagal ah ciidamada u baabi'iyey. ceebtii ka dhacday meesha la yidhaahdo aadan yabaalna ay ahayd mid uu istaahilo oo mudan yahay. inuu kaba ku tukaday oo isku reer yihiin soo cayrsado madaxweynaha. wax alla wixii resources u haray ciidamada kadib markuu horay u siiyey wax alla wixii waddanka yaallay ay horay uga qabsadeen, meel kastana ku qabsadeen oo ay si aan caadi ahayn u qabsadeen, haddana intii hartay uu gacanta u geliyey. waxaa la yaab leh beebayaashii ay ka qabsadeen al-shabaabku ay ka qabsadeen xasan sheekh bay ku soo weerareen iyagoo bad ah. dhowr iyo 10 beebaa soo galay. waa loo xoog sheegtay, awood baa lagaga saaray ciidanka meesha la yidhaha aadan yabaal. intaas waxay jawaab u ahayd ku talagalkii xasan sheekh uu ciidamada burburinayey. hadallo u horreyn jirayna aad ogtihiin oo ah ninkii aan $100 rabin oo askariga guriga hooyadii ha aado, iyo soomaaliya ciidan xoog la uma baahna, xasan cid kale u shaqeeyaa, dowladnimadana duulaan buu ku yahay iyo dagaal. ninkii qabyaalad u yaqaanay diin iyo inay fiican tahay oo dowladnimada iyo qabyaaladdu iskaga khaldameenna maantuu hayaa. nimankii mudullood ee shirarka joogtada ah qaban jiray ee farmaajo ka soo bax la taagnaan jiray oo markaa victim u muuqday, maanta ay xilka hayaan iyagii iyo kuway wateen oo fadhihi jiray shirka weli waa qaylinayaan. qabaa'ilku waa shirarkooduna waa u khaas, bannaankana ma taalo. howlaha u gaarka abayna ka shiraane, danta guud iyagu shuqul kuma laha. yaan laysaga kiin khaldin qabyaaladda iyo qabiilka iyo qaranka. qaranku waa wax dadkoo dhan ka dhexeeya, anfaca ku filan. qabyaaladuse waa wax shay gruub gaara khuseeya lagaga hadlo, interest reer gaara leeyihiin yaa lagaga hadlaa. marka reerka iyaga interestigiisu waxaa dhici karta reerkiina inuusan interestiba u ahayn, marka ma khusayso reerkiina iyo reeraha kaloo dhan. reerka iyaga khusaysaa inay public timaado, bannaanada fadhido shirkii beelaha mudullood waxay ku tahay ceeb iyo caar bay ku tahay. waxayna sheegaysaa magaaladan caasimadda ah inay shidaysan tahay. anigu waa ka warwareegaa caasimadda buuqeeda iyo mucaaradkeeda, waana jeclahay magaaladaas, waana magaalo loo dhisay infrastructurekeeda. inkastoo xasan hadda kaba takhallusay gebi ahaanba wixii dowladdu lahayd, wax yar mooye infrastructure ahaan magaalo qaadi karta dowlad soomaaliyeed oo aan muqdisho ahayni ma jirto aragtidayda, laakiin shiddaa halkaa ka jirta. waxaad ogaataan madaxweynuhu wuxuu la kulmay yaasiin fari. waa aadan yabaal kadib wuxuu u sheegay anigu ciidan fara kuma hayo oo ciidan qaran ma hayo,